Soomaalida waa sidana adigu yaa tahay macirka ka soo dhacday halkaad ka timi maad Soomaali hayn halkaad ka tagtay meel halkan ahayn yaad u dhalatay meel dadkan ahayn de ummadada ku dhex jir Audio Jungle kula joocan wanaagsan cid kastana daawanaysa halkan waa Dayax Films aad baan idin soo dhaweynayaa inta nagu cusub subscribe saarta naga mid noqdo nala soco halkan arrimo la xiriira fanka iyo arrimaha bulshada ayaan kaga hadalnaa inta badan dadkan u hadalna maanta mowduucan wada wuxuu ku saabsan yahay ama uu ka hadlaya arrin mucjiso ah subhanallah orda Soomaalida way sii caraabaysaa carrow kiina rag ahaanag iilku sii galaya iskaba galba waxaan goor dhaweydaan waqti yar siiyaan dawday video ama muuqaal social media aad loo wareejinayo oo nin hooyadii xiriirka u jaraya aan looga dhigay waan sii dawday waan yaa waxaan tiray war Ruush iyo Mareykan baa iyo balaayada ka jirtay xiriir u jaray ma qof baad aragtay waalidka xiriirka u jara war bal yara daawo waan daawdo hooyadaasi waa hooyada waa codkeeda marka eegto waa hooyo weyn way ilmeynaysaa waariyaama galiba ku jira laga hoogi isagina wuxuu leeyahay maxaan sameeyay de marka hore way kala dhimanno oo soo marka ninkani mar hore ayuu shaaciyay in nin kale uu isaga qabo subhanallah kadibna waxa dhacday markay sawiradiisu wixii aragtay isaga dayrisay dadna intu call ka garaacay buu mobilka kale kan kale video live kaga jira uu ka duubay Facebook codkeedii dabadna wuxuu leeyahay hooyo hablahagaba waa la qabaay maxaa dhacay sidee gacanta bidixdu ka laafiyanaya dadna waxay isaantii intay ooyday bay tiri war manin baa la guursadaa telefoonka bay ku dhigtay isagoo hadalkiisii qabsaday tararag wuxuu shubaya hooyooyinka Soomaalidu hooyooyin maaha maxay iga ogeyd kaliya waa soo rafaaday halkan kaliya waa iskeenay markii hore biil iyo rabash iyo balaayan idinku qabay waan idinka raysanaya budubada waxa soo shubaya oo leeyahay hooyada Soomaalidu intay ku hadlayso oo aan ka warhaynin baa lagu oranayaa xaq bay ku leedahay waa hooyada oo ma dhalmaday dhashay xaq ay ku leedahay war waxan yare kufaarkan yar yaa qabsada dabadna waxa dhacday inankaas waxa uu daldalayo waxa uu shubayo waan ka yaqyaqsooday sida dumarku yara tirsanaya bidixdu ka laafiyoonaya afku murmurinaya ya laakiin uu bareersan yahay wuxuu cadaabtana toogu daran gal waalidinkaarkan la sheegay ka ugu daran noqdo naarta ku dhacday ilaahay afka ku kala jid si alla si laga yeelo lama garanayo war Soomaali horta waa la si galbanaya oo dunida aakhir sabaan weey aad baan uga yaabay ninkaas marka run iyo reality laga hadlayo diinta marka qofku warta markuu cilmi leeyahay oo cilmi diin inuu leeyahay dunida diin lahayn horta ilaahay iimaanka inuu adkeeyo ilaahay khayrkeena oo fajiyo ilaahay toobada hayna garasiyo ilaahay khaatumada hayna garasiyo xaq khayr ay nagu dhameystiro te qofku markuu qof ilaahay de meel ka tuuraya anigu ma sheegin laakiin diiniyan bay tahay waxa lagu yiri hooyada hal mar oo xanjaarka yaani xambaarka ay ku xambaartay hal mar oo u yara dabacday naxdinta ka naxday ayaana sinin minin isaguna wax kale ka hadlaya ma meel cogdadaysan tolo bariis cogdadaysnaaba waan hadii laga joonayo hadii hooyada waxba ku weydii hadii lagu eegi waayay hadii adduunku isbedelo waarde waa taas waa waqtiga ilaahay baa qoray ilaahay ayaa qoray ha u dodintay maalin baa la qeedaysiin waayay de ilaahay de maba haysaba hooyadu ilmaheeda oo gaajoonaya iyadu maba seexataba maba nasataba hadii laakiin ku weydii daadeer ha u dodin oo intaad garkaas kala baxdo daadeer meelaha ka soo hadlin oo video live soo gali ya marka horeba adiga ilaahay meel kale kula damacsan duni kale ku geey de ma garan karayo nin baa ku qaba xaas baa tahay ninna waa tahay gadna waxaan markaan daawanayay war mu garkun iska xiro alla ceebe una ceebeeyay mu garkun iska muldiyo de marka waxa weeye qofku wax wanaagsan
markuu qof ibni aadan uu yahay ibni aadan waxa badan beegay hooyooyinka Soomaalidu qoladan Soomaalidana oo ka yaabo intuu mid kasta tahriibo dibadda qabto oo boodhanaya Soomaalida sidana Soomaalida war adigu saalahay war dunidu say tahay war ilaahay suu wax yiri ha iska raacin qoom kale inta iska aragtay ha iska daba gelintay ha iska eriyantay ma garanaysaa marka waxa weeye muhiimadu cid alla cid duntiite adeer adduunyada yaana ka hogaamintay adigu hogaami ilaahay de wax kasta waa sheegay quraanka akhrisadde marka wax karin weydo xadiisada eegtay masaajidada galtay salaada tukadde niyad khayr u sheegtay laakiin inta qolo kale iska eegaan hadda qolotay waryaareen ay oranayaan Soomaalida waa sidana adigu yaa tahay macna ka soo dhacday halkaad ka timi maad Soomaali hayn halkaad ka tagtay meel halkan hayn yaad u dhalatay meel dadkan hayn de ummadada ku dhex jir ilaa ay mikrofoonki wax xanaaqay iska raali hada ma waxaan xanaaqin ba waxa weeye ninka wallahi aad baan uga jircooday aad baan uga qirooday marna isagaana boqo xal bal siqaadka salka ku dhacay marna hooyada oo isan ka naxay oo ilmaha keentay marna dunidii iyo say dunidaasi noqotaan ka naxay marna waxaan ka naxay dunidii say noqotay iyo Soomaalida say noqdeen iyo raggii waryaareen warin rag wax guursan jiray isagaas waqtigan la guursanaya ya masi habliina leeyihiin in rag baasna sidan maxaad aniga ba qaad taagan aniga waa jarka si laalaadnay maxaanu haynaaba soo kan ragiga la guursanay gad buu la baxay markaas hadana waa la meersay wuxuu ku leeyahay waa la qaba hooyo soo tablaha ka wal qabo haan ku dhacdo afka koos ruux uu naceebay marka waxa jira dad fara badan oo waalidin kaarina laakiin waalidin kaarku uu qarsan jiray sidan ma yahayn aad loo soo bandhigi jiray nimka laakiin heerkaas maraysa ilaahay saga qafuur raxime ilaahay hooyadan badal khayr qabahasi ilaahay niyadeeda ha uga saaro isagana ilaahay hasiyo waxa uu mutaystay ee dunida ku mutaystay aakhirana wuxuu helo leeyahay aakhirana kaasoo kale wana qanaay aakhirana wuxuu helo ee kaydsaday buu leeyahay adduunkana ilaahay ha kaga jaro waxa uu kasbado isaga qafuur raxiima isaga sidoo doona yeela isaga cirkan iyo dhulkan aynu hoos joogno tiir la'aan gogle marka waxa weeye warniyaha waxa soo kalena ilmaada real kuwa kale fara badan waxna waa mashruuc kuwa kale fara badan imika soo bixi doonaan oo qaraaba aabaan dayrin hooyan xidhiidh war meesha Ruushka Mareykanka soo jabay war yaareen war ma Iran iyo Mareykanka ba xidhiidh soo jaray hooyan xidhiidhka u jaray halkee lagu arki jiray ya warta dunida way socotay marka inaad waxa nagu faafinina anigu muuqaalkan imika inay horkeena waan diiday waayo wuxuu yahay baan garanaya ana soo daawday wax daawasho lagu tala galay maaha qalbigiina iyo niyadiina u diiday waxa soo kale ina faafin ma garatay ilaahay baynu khayr ka barina in ilaahay day aanu sidaa inaga dhigin oo dunida intaynu joognaa waa maalme ilaahay inuu xaqeena garadsiyo hooyo Soomaaliyeed oo gaajo ma garanaysaa oo dhibaato oo waxaan kula eeteedii la leecaysa oo haday doonto xabuubta iibinaysa oo haday doonto bacadka ku fadhida oo haday doonto maalinta ku wareegaysa qaar baarkii xataa kuliyada gala qaar baarkii xataa sibirka miisa sidii caruurtooda ay bariis ugu raadinayaan war ma kuwaasa oo yaa helaba kuwan dunida 18 jir markuu gaadho banaanka loo tuura guri gaar loo sameeyo yaa ka war hayaba hooyadana markii 60 jir gaadho ayaa la geeyaa kaam kale war yaa hela ku weyn yaa hela way ku dhimanaysa ilaa iyo intay gaboobisay ku dul taagan tahay hadhicin hajooyin bay ku leedahay way ku aroosaysa way ku dhisaysa way ku buraanburaysa cuntadii bay ku karinaysa way ku soo korisay hadana 40 jir guriga hooyadii jooga bariiska cunaya madarad adduunka kama dhacday Soomaaliya ka dhacda adduunka kama dhacdo inta Soomaalidu iska wada guursadaan ba dumarkooda markay soo furaan ilmayaasha dhasha xataa hooyadii bay u keenaan war yaa hela ku weyn ilaahay nimcada hayna garasiyo ilaahayna xaqayna garasiyo anuu ma garanay halka ku socotaan ilaahay meel khayr qabta hayna geeyo ilaahayna Soomaaliha soo hadayo ilaahayna nacaska soo midhan ba ku jira doqonta karka iskala baxday oo midhan ba ku jirta ma kuwa ilaahay noo raaco kuwaana ilaahay nagu halaago
inta khayrka maaragtay inta khayrka u saaxiibka ah inta ilaahay ka baqanaysa inta ilaahay u sujuudaysa inta waalidka ciisaynaysa inta waalidka maaragtay daryeelaysa ayaa ka badan kaasoo midho doqotaas ilaahayna ka meel kale ka eegto aad buu waxaas inooga xanaajiyay laga xanaajiga ilaahay madaxago daawadayaal ama saaxiibayaal inta dayax film isku xidhan warniga muuqaalka aad hawsi sheergaraynin ilaahay baan idinku dhaari ha sii sheergaraynina muuqaalka ninkaasi duubay ee social media wareegaya ha sheergaraynina meel kale ha dhigina ha faafinina hooyooyin kale qalbiga ha sii jabinina ya ka aynu ku cibro qaadano inaga daaya ignore gareeya ha la hadlina waxba ha u qorina ha caayina iska daaya cirka ha tago soo ilaahay ma abuurin ilaahay baa eeganay hooyadaasna waxaan leenahay ilaahay halkii isagoo kaaga baxay ilaahay bedel khayr qaba ku si beel yaro siin jiray ayuu waan ka gooyay ugu hanjabay ilaahay irsaaqada adigana ka goo toqoyahu ruuxaas oo kale kaas oo kale aan ka xanaaqa aad baad maasantiin intana daawanaysa intana daawatana aad baad maasantiin ilaahay hooyooyinka inoo ilaaliyo ilaahay ubadka hayno wanaajiyo ubad khayr qaba lagu dacaysan jiray kaas oo kale khayr ma lahayn waa khayr laawe ilaahay xaqeena garadsiyo وانا يابن هاي اذكر الله يا ابو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Audio Jungle.